Has been strength and victory. I boost the economy. noqotay de wada furano in wax la qoraa way fududaanaysaa runtii halkan runtii aan jeclaa inuu yaalo laakiin saan oolin oo la dhaahdo xarajeeya qofka akhrista inuu waxyaabo badan oo ku qoran waad guulaysan kartaa madaxda hadda joogta ma ahee madaxda mustaqbal rixam gooniya naga dhaxeeya rixamka naga dhaxeeya waxaa weeye inaan qiimayno qadarino adduunka waxaa ka curtay kacaamo wax soo saar iyo waxbarasho adduunka waxaa ka curtay thaqaafado aad u wanaagsan. We have brought together speakers and authors and writers and intellectuals and poets from all around the world. But we've also tried to give a platform to homegrown talent. So you have young writers, we have up and coming poets, we have all kinds of talent that's kind of hidden away in the country, even in this city. For example, there's a 16-year-old kid who's here with us today who has written 3 books, has never left Mogadishu, has never had anyone to appreciate him, has never had a platform like this to be able to come and say, look, I'm 16, but my talent, my mind, my ambition is far bigger than just the number 16. And so it's a platform for those kind of people. But it's also going to be a platform for everyone who loves the culture of reading, writing, and books and literature. We want to celebrate books. We want to celebrate literature. We want to celebrate reading. We want to celebrate knowledge. We want to celebrate intellectual debates and discussions. We want to be able to bring up so many of our young brothers and sisters who have so much in their hearts and minds, who probably don't have a place for them to come to. buuggan horumaryaha nolosha waa buug ka hadlaya badan buugga ceelka cilmiga la yiraahdo waa buug su'aalo iyo jawaabo ka kooban sare loo qaadayo aqoonta shada ayuu ka hadlayaa buuggan waxa la yiraahdaa waxaan qoray buug gaaris ilaa 6 buug qoray buugta macayoodan kuusha buuggan gacanta ku waxa la yiraahdaa horumaryaha nolosha ceelka cilmiga xaqiirin haweenka caruurtan dayaan cidaaba u maqan xulkii xigmada tusmaal buugtaas ay qoran hadana 2 buug aan wada oo kala yiraahdo kasba barahaaga iyo buugal dhalinyaro dhulkooda ka hayaamayso labadaas buugan wada ujeedadii ugu dhalisay waxay tahay in dhalinta Soomaaliyeed la yiraahdo wax ma qori karaan su'aasha mar waliba waxay tahay Abuubakar ma dibad baa ku soo barbaartay waligeed dibad kuma soo barbaarin dalkan ku soo barbaarin ujeedadii wax u qorno waxay ahayd inaan sare u qaado afka Soomaaliga farxad bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo bandhiga carwada buugaagtan waxaan anigu uga qayb galayaa buugayga la yiraahdo waad guulaysan kartaa oo aan sanadkan soo saaray waana buugii iigu horeeyay laakiin aan noqon doonin buugii iigu dambeeyay waa buug ka hadlaya taabanaya nolosha dadka gaar ahaan dhalinyarada waxaan ugu talagalay inaan ku baraarujiyo dhalinyarada dalka ka sii hayaamaysa waxbarashadii aan rajo badan ka sii qabnin inay dalka sii joogaan waa buug u horseedi kara dhalinyarada inay horumar gaaraan inay fahmaan waxa ay guusha tahay inay fahmaan caqabadaha hortaagan oo ay guusha ka gaari laayihiin inay fahmaan tabaha ay guusha ku gaari karaan waxyaabahaas oo dhan ayaan buuga uu ka kooban yahay Muqdisho
International Book Fair is an event where everybody can meet everybody, and there are so many people here. And this will have a big impact, whether it's people's belief, what they believe about books, what they believe about knowledge. maanta waxaa farxad ah inaan kasoo qayb galo bandhig buugeed lagu sameynayo hoolka City Plaza. aad ayaan ugu faraxsanaa, waan rajeynaa inaan ka qayb noqdo mar uun. waan ku faraxsanaa qoraalka Soomaalida aad iyo aad. It's a great honor for me to attend this ceremony. So I have seen a lot of things, a lot of famous people, a lot of authors and academic people who came from different countries, and I asked them. They told me that I can write books. Then I can tell others that everybody can write books.